shir madaxeedka Afrika iyo shiinaha ayaa si rasmi ah uga furmay hoolka shirarka ee Santown ee duleedka magaalada Johannesburg ee dalkani koonfur Afrika. shirkani oo ahaa mid heer caalami ah ayaa looga hadlayay iskaashiga wadamada Afrika iyo shiinaha. madaxweynayaasha Afrikaanka ee ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, Uhuru Kenyatta Kenya, madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir, madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe, ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn, madaxweynaha martida loo yahay ee dalkani koonfur Afrika iyo madax kale oo aad u tiro badan. madaxweynaha dalka Shiinaha Jinping oo shirka khudbad dheer ka jeediyay ayaa ku nuuxnuuxsaday inuu ku faraxsan yahay iskaashiga Shiinaha iyo wadamada Afrika, isagoo la sheegay in madaxweynuhu wadamada Afrika uu ku bixin doono dhaqaale aad u tiro badan, gaar ahaan wadooyinka, caafimaadka, waxbarashada, beeraha iyo biyaha qaaradda Afrika. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamed oo lagu waday inuu ka soo qayb galo shirkani ayaa dib u dhac ku yimid, waxaana lagu wadaa saacadaha soo socda inuu soo gaaro dalkani koonfur Afrika si uu kaga qayb qaato shirka maalinta berri dhici doono, kaasi oo lagu soo gabagabeynayo shirka madaxda Afrika iyo shiinaha. xassankaafi maxamed shire telefishinka caalamka Universal Santown Johannesburg.